injiilka sida Matayos u qoray cutubka 25aad. haddaba boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiin doonaa 10 gabdhood oo bigrada, kuwa intay laambadahooda qaateen u baxay inay ninka arooska ah ka hortagaan. 5 waxay ahaayeen doqonno, 5 caqli bay lahaayeen. kuwii doqonnada ahaa laambadahoodii bay qaateen, laakiin saliid ma ay qaadan. kuwa caqliga lahaase laambadahoodii bay qaateen iyo weelal saliidi ku jirto. laakiin ninkii arooska ahaa waa raagay. taas daraaddeed ayay wada lulmoodeen oo seexdeen. habeen badhkiisii qaylo ayaa yeedhay, arooskii waa soo socdaaye soo baxa oo ka hortaga. markaasaa bikradihii oo dhamm wada kaceen oo laambadahoodii hagaajiyeen. kuwii doqonnada ah waxay kuwii caqliga lahaa ku yidhaahdeen, saliiddiinna wax naga siiya, waayo laambadahayagu waa demayaan. laakiin kuwii caqliga lahaa ayaa u jawaabay oo waxay ku yidhaahdeen, maya, waaba intaas oo ay nagu filnaan weydaa annaga iyo idinka. bal u taga kuwa iibiya oo ka soo iibsada. markay tageen inay soo iibsadaan, ninkii arooska ahaa ayaa yimi, oo kuwii diyaarka ahaa ayuu la galay guriga arooska. albaabkiina waa la xidhay. dabadeedna waxaa yimi bikradihii kale oo waxay yidhaahdeen, sayidow naga fur. laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, anigu idin garan maayo. haddaba soo jeeda, waayo garan maysaan maalinta ama saacadda. maxaa yeelay waa sidii nin dal kale tegaya oo addoommadiisii u yeedhay oo xoolihiisii u dhiibay. mid wuxuu u dhiibay 5 talanti, midna wuxuu siiyey 2, midna wuxuu siiyey mid kasta sidii tabartiisu ahayd. markaasuu dhoofay. isla markiiba kii 5 talanti helay ayaa tegey oo ku baayac mushtaray, oo wuxuu ka faa'iiday 5 talanti oo kale. sidaas oo kale kii 2 helayna 2 kale ayuu ka faa'iiday. kii midka helayse wuu baxay oo dhulka qoday, oo lacagtii sayidkiisa ayuu ku qariyey. wakhti dheer dabadeed sayidkii addoommadaas ayaa yimi oo ka xisaab qaatay. kii 5 talanti helay ayaa yimid oo keenay 5 talanti oo kale, oo wuxuu ku yidhi, sayidow, waxaad ii dhiibtay 5 talanti. eeg, 5 talanti oo kale ayaan ka faa'iiday. sayidkiisii ayaa ku yidhi, si wanaagsan baad yeeshay, addoon yahow wanaagsan oo aaminkahu. wax yar ayaad aamin ku ahayd, wax badan baan madax kaaga dhigayaa. farxadday sayidkaaga gal. kii 2 talanti helay waa yimi oo ku yidhi, sayidow, waxaad ii dhiibtay 2 talanti. eeg, 2 talanti oo kale ayaan ka faa'iiday. sayidkiisii ayaa ku yidhi, si wanaagsan baad yeeshay, addoon yahow wanaagsan ee aaminkahaw. wax yar baad aamin ku ahayd, wax badan baan madax kaaga dhigayaa. farxadda sayidkaaga gal. kii talantigii keliya helayna waa u yimi oo ku yidhi, sayidow, waan ku garanayaa inaad tahay nin qalbi engegan, oo aad wax ka guratid meel aanad waxba ku beeran, oo aad wax ka urursatid meel aadan waxba ku firdhin. waana baqay, oo intaan tegey ayaan talantigaagii dhulka ku qariyey. bal eeg, waa kan kaagii. markaasaa sayidkiisii u jawaabay oo ku yidhi, addoon yahow sharka leh ee caajiskaahu, waad ogeyd inaan wax ka gurto meel aanan waxba ku beeran, oo aanan wax ka urursado meel aanan waxba ku firdhin. haddaba waxaad lahayd inaad lacagtayda u dhiibto kuwa bangiga jooga, oo goortaan soo noqdo waxayga iyo faa'iido ayaan qaadan lahaa. haddaba talantigii ka qaada oo u dhiiba kan 10 talanti haysta, waayo mid walba oo wax haysta waa la siin doonaa, waana loo badin doonaa.
kii aan waxaysanse waa laga qaadi doonaa xataa wuxuu haysto oo addoonka aan waxtarka lahayn ku tuura gudcurka dibadda halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilgajiriqsi goortii wiilka aadanuhu ammaantiisa ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhan ayaa hortiisa lagu soo ururin doonaa oo wuxuu u kala sooci doonaa mid sida adhijirtu u kala soocdo idaha iyo riyaha idaha wuxuu joojin doonaa midigtiisa riyahana bidixdiisa markaasuu boqorku kuwa midigta jooga ku odhan doonaa kaalaya kuwa aabbahay barakadeeyayow oo dhaxla boqortooyada tan iyo aasaaskii dunida laydiin diyaargareeyey waayo waan gaajooday oo cuntaadii siiseen waan haraadsanaa oo waad i waraabiseen qariib baan ahaa oo waad i soo dhowayseen waan qaawanaa oo dhar baad i huwiseen waan bukay oo waad i soo booqateen xabsi baan ku jiray oo waad ii timaadeen markaasaa kuwa xaqahu u jawaabi doonaan iyagoo leh sayidow goormaanu ku aragnay adigoo gaajaysan oo aannu cunto ku siinay ama adigoo haraadsan oo aannu ku waraabinay goormaanu ku aragnay adigoo qariiba oo aannu ku soo dhowaynay ama adigoo qaawan oo aannu wax ku huwinnay goormaanu ku aragnay adigoo buka ama adigoo xabsi ku jira oo aannu kuu nimi markaasaa boqorkii u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in alle intaad u samayseen mid ka mid ah walaalahaygan u yaryar waad ii samayseen markaasuu kuwa bidixdiisa jooga ku odhan doonaa kuwa yahow inkaaranu iga taga oo gala dabka weligiisa kan ibliiska iyo malaa'igihiisa loo diyaargareeyey waayo waan gaajooday cuntana ima aydnaa siin waan haraadsanaa imana aydaan waraabin qariib baan ahaa imana aydnaan soo dhowayn waan qaawanaa dharna ima aydnaan huwin waanan bukay oo xabsi ku jiray oo ima aydnaan soo booqan iyaguna markaasay u jawaabi doonaan oo ku odhan doonaan sayidow goormaanu ku aragnay adigoo gaajaysan ama haraadsan ama qariiba ama qaawan ama buka ama xabsi ku jira oo aannu ku kaalmayn weyni markaasuu u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in allah intaad u samayn weydeen mid ka mida kuwan ugu yaryar anigana waad ii samayn weydeen kuwanuna waxay geli doonaan takhsiirta weligeeda kuwa xaqa hoose waxay geli doonaan nolosha weligeeda